السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي waa idin salaamay meel baad idinka joogtaa magacayga waa Xafsa haddii aad markii ku horeysa channelka soo booqanaysa fadlan subscribe ii saar hore haddii ila joogto oo ku mahadsan tahay maanta waxaa idin wadaa macaan aad iyo aad u fudud haddii sidoo kale ramadaanka jeceshahay yani afur kadib inaa cuntid macaankan aad iyo u fudud waqti kaama rabo foorno uma baahno meeshaad waxaa ku haystaa waa koob iyo bar oo maxaa la dhihi jiray qumbo oo la xoqo oo la qalajiyo waaye waxa ku daray sweet milk was dhaxgelinaa kadibna ku kuusi doona kadibna shukulaato ay dhaxgeli doona faranjeerka ay geli doona marka afurku xeer kadib ka soo bixi doona insha Allah tijaabi aad iyo aad u macaabadan yahay haduu fiidiyoon ku cajabay fadlan like isaar salaamu alayhi calaykum تارك الصلاة إلهي وعراضي قف ربي وعراضا ربنا ما أنت إنا رالي كنقن أن رالي جنين وتارك الصلاة كالعنب أياك سودك أكديسها فديسن أكديسها سيحن جبرها إسكسين قيمة إيا وناكوليه ملاه تارك الصلاة كقيمة ملها فإذا ملها تلك أوفدي أيا لعنض قرق أو كجرا لعنضاي راشنك أو عنايا لعنضاي تارك الصلاة كمسلمين تولا لمها بناك ليسك جيا هدو دنتان لدقن hadduu dhintaan la karfanin hadduu dhintaan si fiican loo doogin qori ayaa lagu jiidaa qashin qofkaa lagu tuuraa culimada gobol ayaa tiri waa la qabtaa god inta loo qodaa laysaga ridaa caradaa lagu shubaa qole ayaa tiri xushmad iyo wanaag male qiimo iyo wanaag uu leeyahay malaha muslimiinta walaala lama aha banaanka ayuu ka joogaa qofka taariku salaadka ilaa agtiisa wanaag kuma laha naag kuma xiranto khayr iyo wanaag malaha wejigiisa malaha bahjadii calaamada dadka saalixiinta ah taariku salaadku waa malcuun taariku salaadku waa axad alle ka furtay oo diinka aysa aan haysanin waa mid ku khasaaray adduunka iyo aakhirada culimadu aad iyo aad ayay uga hadleen xukunka uu leeyahay taariku salaadka imaamu maalik iyo imaamu shaafici axmed saddexduba waxay dhaheen taariku salaadka waa la dilaa xadkiisuna waa darban bisayfi fii raqabati waa qoortiisa oo lagu gooyo seef intaa ka gadaal ayay isu khilaafeen magaalnimaa loo dilaa masamaya qoortiisaa la gooyey meydkiisaa yaala waxaa murunka taagan yahay magaalaa mase waa maya waa fiiri axadka taariku salaadka dhibka uu leeyahay haddii uu ka tago cudur la-aan salaada ilaa waktigeedu ay ka baaba'do waa kaafir ayaa la dhahay ibraahim annuqaci أبو أيوب عبد الله بن مبارك أحمد بن حنبل إسحاق بن الرهوي كافر وايا أيده وحين أدل السدين أو قول في النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة على مضها إيا ميزدة بل مضى إيا تلمامها لكوك ليقان أنك إيا قال ذا صلاة فمن تركها فقد كفر قفتي كتغا وكافر وحمر قلين كرام مجرو تارك الصلاة أداتها وكافر أدما أتكافر ليدها أو إسلام قطش هدات بعضه إيه هدادا فيه labadaba gaal ayaa tahay taariku salaadku waa inuu sidaa ogaado alla agtiisa inuusan sharaf iyo qiimo ku lahayn bayna arajul wa bayna alkufri tarku salaa rajulka iyo gaalnimada waxaa u dhaxaysa salaada oo laga taga keliya sidaa darteed ayuu ilaah yidhi subxaana wa tacaala asagoo arrintaa tilmaamaya fa in taabuu wa aqaamuu asalaa hadday tawba keenaan hadday shirkiga ka soo rujuucaan haddii gaalnimada ay ka tagaan haddii rabbigood ay aaminaan subxaana wa tacaala fa in taabuu oo wa aqaamuu asalaa salaada ay hagaajiyaan oo wa aatawu azakaa zakada ay gutaan fakhalluu sabiilahum jidkooda u sii daaya ina allaha gafuurun raxiim ilaahay waa alla dhaafid badan oo naxariis badane dambeyn sidaan quruxda badan oo ku soo baxay taraajada gelinaa 30 daqiiqo ku jira afurka marka la gaaro ka soo bixinaa insha Allah inaba caadi ma aha tijaabiyo salaamu alaykum